asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan mar kale maxay dadka qaar naftooda iyo dalkoodaba wax u taraan oo kaalin muhiima uga soo baxaan halka dadka qaar naftooda u dayacaan dalkoodana u burburiyaan haddaba dadkaas waxa u dhexeeya waa isku waajibin qofna waajibaad buu iska saaray dalkiisa qofna hagardaama ayuu dalkiisa ugu horseeday ee maanta muuqaalkiina wuxuu daaran yahay isku waajibin ee ku soo dhowaada barnaamijka faahfaahsan ugu horreyn aynu qeexna bal ereyga isku waajibin macnaheedu waxay tahay wax kasta oo aad isku waajibiso inaad sidiisa uga soo baxdo duruuf kasta oo jirta aanay kaa hor joogsan caqabad kasta ama dhib kasta oo kaa hor timaadana aanad u joojin dibna aanad u noqon ilaa aad ka xaqiijisid waxaa isku waajibisay wuxuu yidhi doctor Robert Scheller awooddaada oo dhan isticmaal ka bilow meel hoose laakiin ka feker meel sare inaad gaadho ka gudub caqabadaha wixii aad haysato oo dhan maal gasho mar kasta haw mid dhaqdhaqaaq badan una diyaaraa dhib kasta laakiin ha u ogolaan dhibaatadaas inay kaa horjoogsato wixii aad isku waajibisay iminkana ha gudagolno qodobadeenna muhiimka qodobkeena koowaad ee runtii muhiimka ballan ku qaad inaad noqotid shakhsi aad ugu muhiima dadkiisa iyo dalkiisaba taasna waxay kaa saacidaya inaad aqoon yeelatid aqoon maadi iyo diiniba inaad yeelatid markaad aqoontaad yeelatid adigaabuu ficil ku gelaya oo ficil ah inaad dadkaaga wax tartid oo dadkaaga wax uga faa'iidaysid oo dadkaaga waddada quman ee adduunya aakhiraba anfacaysa aad ku hogaamisid ayaa ku gelaya ficil ah markaad aqoon yeelatid ee jaahilnimada duliya haddaana aqoon lahayn aqoon baro weliba aqoonta diiniya diintaada baro ha ka noqoni marti maadigana baro laguma diidin qodobkeena labaadee isaguna runtii muhiimka waxa weeye fiiri wixii tegey una arag inuu yahay keed khibrad ah una isticmaal si xikmadaysan waayo wixii tegey waxba ka qaban kari maysid waxaasna uu ku daynayaa markuu kaa tegey tusaale ahaan caanaad soo iibsatay aad soo gadatay caani adoo la soo socda dhulka kaaga dhacay caanihii dhulkay ku daadteen dhulkii baa liqayba caanihii dhulkuu liqay maad soo celin kartaa oo dhulka maad ka soo nuugi kartaa su-aashu waa maya waa sidaas oo kale wixii kaa tegey waa sidaa caano oo kale wax soo noqonaya markaa ma aha inaad wixii kaa tegey aad isku mashquulisid oo aad ka fekertid wixii kaa tegey way tegan weligoodba soo noqon maayo waxaad wax ka qaban kartaa uun waxa weeye mustaqbalka kugu soo socda inkastoo ilaahay og yahay qaybka ilaahay subxaana watacaala uu og yahay qaybka iyo wixii soo socda haddana ha yeeshee adugu waxaad ka qaban kartaa oo ah inaad maanta dadaashid dadaalkaagay ku xidhanta maanta haddaad mustaqbal doonaysid heer sare ka gaadhid maalmaha soo socda haddaad noolaatid dadaal maanta u dadaal inaad u dadaashid waa muhiim ilaahayna ma dayaco dadka muuminiinta dadaalkooda iyo wanaagooda ma dayaco ilaahay subxaana watacaala marka haddaad yaraantaadii bilaa waxbarasho ku soo kortay caqabado baas oo qallafsan la kulantay waxaas way tegeen soo noqon maayaan wixii tegey shalay kaa tegey waxay kaa qaadayaan farxadda maanta iyo wakhtiga maanta aad haysatid ee maaha inaad isku mashquulisid qodobkeena saddexaad ee runtii isaguna muhiimka waxa weeye intaad dhallinyarada tahay baro mas-uuliyadda inaad mas-uuliyad yeelatid waa muhiim ina hooyada ku aamini karto oo kaa dhigato khasnadeedii waa muhiim oo dakhligeeda ku dhiibato inuu dadka kale bila'aadanka ku aaminaan waa mas-uuliyad aad qaaday marka mas-uuliyadda baro intaad yar tahay oo dadka xoolahooda u ilaali intaad yar tahay markaad yar tahay haddaad isbarbaarisid oo mas-uuliyadda iyo qiyamkaaga akhlaaqiyaadkaaga dhistid markaad weynaatid oo mas-uul noqotid ama wasiir noqotid ama madaxweyne noqotid dee waxaad iska ilaalinaysaa xoolihii dadka ay lahaayeen shacabku lahaayeen baad iska ilaalinaysaa waa sidaas oo kale maanta madaxdaas soomaaliyeed oo calowsa shaqaystayaasha lagu sheego ee waa dad yaraantooda aana isku soo tarbiyadeenin mas-uuliyadda iyana wixii loo dhiibaba mas-uuliyad tahay yaraantooda isku soo tarbiyadeenino wixii soo galayaba iska cunaya oo dabada ka ridaya marka aduu intaad yar tahay akhlaaqiyaadkaaga dhis oo dadka si wacanna ula dhaqan dadka mas-uuliyadda wixii lagu dhiibana sidooda uga soo bax markaa dadku iyadaa kusoo dhow qodobkeena afaraadee isaguna runtii muhiimka naftaada cid kale ha barbardhigin ee kolba wakhtigii hore sidaad aheeduun barbardhig waayo dheh qofka bila'aadanka ah markaad aragtid qof adduun ku dhaama ama ciyaarto aad noqdo ama qof kale aad isbarbardhigtid dee niyadjabunba ka qaadaysa hebel waxaasuu ku dheerya hebel naftaadu kuu soo celcelinaysa markaa naftaada kolba waxaad barbardhigtaa wakhtigii hore sanadkii 2022 sidaad aheed barbardhig oo dheh sanadkaas sidaan ahaa si wanaagsan maheena sanadkan waa inaan wax
bedelaa waa inaad isbedel sameeya waa inaan hore u socdaa dheh waxaa jira buug runtii aan jeclaan lahaa qof walba Soomaaliya dhalinyaro inuu akhriyo How Move Your Matches yaa qaatay burcadkii ayay noqonaya af Ingiriisi kuma wacni laakiin buugaas Soomaali buu ku turjuman yahay oo buugaas shaashada iga muuqda qof walba dhalinyaro oo doonaya isbedel inuu sameeyo buugaas soo akhri baan leeyahay naftaadana cir kale barbardhin ilaahay mu ahaado qof Soomaaliya oo bulshada ka caana ama qof ciyaartooya wax doonaha noqdo naftaada adigu u baatay dadka noqon maysid kolba naftaada waxa barbardhitaa waqtigii hore sidaad ahayd qodobkiina shanaad ee ugu dambeeyay saaxiib wanaagsan yeelo mar walba qofka saaxiibka la tahay saameyn buu kugu yeelanay kaliya imika saaxiibadii may noqon dadka ay israacdaan labada qof ay israacdaan oo aad taqaaniin may noqon saaxiibadaada waxaa soo hoosgalaya aad israacdaan saaxiibada aad baraha bulshada aad ku leedahay haddaad YouTube aad ku xidhan tahay waa saaxiibada dad TikTok dad kaga xidhan tahay waa saaxiibada sidoo kale Facebook markaa saaxiibadaadaas aad ku xidhan tahay ha noqdaan dad aad wax ka faa'iidaysid oo hore ku waday laakiin saaxiibadaada TikTok ama Facebook ama YouTube haday noqdaan dad raashin baan bixinana hees cusub baa soo baxday iyo wixii la midka ay jiidaan ku jiiday iyo qiila waqaala ka sheekeeya oo dadku soo gulbiya dadka ku xidhantid adaa meel xun isdhigee dee ka kacbaan ku leeyahay fadhiya dadkaana subscriber ka kaga noq ma aha inaan kuu dirayo dadka laakiin waa inaan kuu sheegayo wixii runta rag iyo dumarba waan ii sheegaya runta dadka waxba ka faa'iidi meesaan aan waqti lumis ahayn iga qosol hees cusub baa raashin ka bixinna hebel baa hebla furay wixii caynkaas inta Soomaalida inuu badan yahay marka baraha bulshadu waa mindi laba af dad wanaagsan oo ugu imaansa dad xun oo ugu imaansa marka dadka wanaagsan raac baan ku leeyahay YouTube dad wanaagsan way jiraan dadka wanaagsan raac TikTok way jiraan dadka wanaagsan marna baa ka hadhin sidaad adna aad u wanaagsanaatid oo meel sare aad u gaadhid laakiin dadka xume raashin baa bixinana iyo wixii caynkaas ka dhamaan la aakhirka iyadun bay aad noqonaysa saameyn bayna kugu yeelanayaan mar walba ka taxadir saaxiibka baraha bulshada saaxiib kula tahay iyo saaxiibka raacsiba marka aniga aad imika ay daawanaysid saaxiibkay baad hadda subscriber ii tahay oo de waayo saaxiibkay waxa nafteeda la jecelahay wax ka badan baan la jecelahay halka nafteeda la jecelay gaarsiyo meel ka badan baan la jecelahay marka saaxiibkay baad tahay soo dhawow mar walba ismartiyeen challenge ku soo dhawow sidaas oo kale marka saaxiibadiina ha noqdaan dad wanaagsan adduunyo aakhiraba aad wax ka faa'iideysan ugu dambeyntii naftaada ka adkoow iyadoo ka adkaan naftaada hadaan wanaaga ku mashquulin xumay ku mashquulinaysa mar walba naftaada wanaaga ku mashquulin subaxii markaa soo toostina nafta mashquulin haddaad mashquulin weydiisina baraha bulshada ayay ku mashquulinaysaa iyo waxa waqtigaaga dilay waa hagaag daawadayaal intaasuu ku eegayay muuqaalkiina maanta haddaad ka heshay muuqaalka anaga la baqaylin leetayna saartay muuqaalka haddaad challenge ku cusub tahay ku soo dhawood waan ku leenahay subscribe basaarasa sidaad u heshid muuqaalada dambe aan soo dhigno mustaqbalka inta muuqaalka xiga isugu iman waa dhamaantii waxaan iga tagayaa amaana Allah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh